san daawadayaal meel walba joogtaan oo mar kale barnaamijkeena Bidar Caawiye TV oo aniga waliba Bidar Caawiye meel walba dunida ka joogta waxaan ku leeyahay isku soo noqod wanaagsan waxaan uga baratay inaan ku soo gudbino warbixin ku saabsan dadka isticmaala New Hair Lotion horumarkay ka gaareen dhibaatada ay ku arkeen iyo waxyaabo la mid ah waxaan kaga hadalnaa barnaamijka la tacaal timahaaga inta daayar tahay waxaan rabaa inaan ku soo qaato barnaamijka fiidnimadan walaal ka mid ah barbaarta gaashaaman oo ila soo wadaagay guul qurux badan walaal ka mid ah barbaarta gaashaaman oo ila soo wadaagay guul qurux badan walaalkan wuxuu ka soo bilaabay eber ayuu ka soo bilaabay walaalkan before saan ayuu ahaa ogsoonow ma uu isticmaalin wax kaniini ah ma uu isticmaalin la soco barnaamijkoo dhammaystiran assalamu calaykum daawadayaal meel walba joogtaan oo mar kale barnaamijkeeni Bidar Caawiye TV fiidnimo wanaagsan ayaan ku leeyahay meel walba dunida ka joogto hadday tahay markii kugu horeysa soo booqato channelka Bidar Caawiye TV waxaan si xushmad leh kaga codsanayaa inaad subscribe iyo like nagu digaas insha Allah bidnillaahi kariim hadaa hore noola joogtay oo Bidar Caawiye TV ku xirnaa channelka Bidar Caawiye TV na waxaan si xushmad leh kaga codsanaynaa waa ku maadsantahay subscribe-kana siisay like suulka kore hanaga baqiil insha Allah bidnillaahi kariim mar walba barnaamij waxaan ku soo qaadanaa horumari timahaaga ama horumari madaxaaga mar walba waxaan kaga hadalnaa dhibaatada ay leedahay waxyaalaha isticmaalaysid ha noqdaan wax walbo insha Allah laba qodob ayaan rabaa inaan kaga hadlo barnaamijka qodobka koowaad waxaa waaye walaal ka mid ah barbaarta gaashaaman oo wax kaniini ah isticmaalin only uu isticmaalay saliidda New Hair Lotion ayuu isticmaalay walaalkan waan kula wadaagi doonaa insha Allah bidnillaahi kariim inta aan guda galno barnaamijka waxaan jeclahay mar walba markaan soo xasuusto inaan ku xasuusiyo haddii daadaada u dhaxayso 16 ilaa 26 fadlan daadaada haddii u dhaxayso 16 ilaa 26 ka digtoono waxyaalaha madaxaaga dhibka u keenayo sida jilcisada kareemka la yiraahdo jeelka hair foodka kalarka madooweysada iyo wixii la midka haddii daadaada u dhaxayso 16 ilaa 26 fadlan ka digtoono jilcisada jeelka hair foodka madooweysada iyo kalarka barnaamijka waxaan kaga hadalnaa horumari madaxaaga adoo gurigaaga joogo ama horumari timahaaga adoo gurigaaga joogo la dagaalan bidaarta tima gogo ah iyo salxanyaha iyo wixii la midka insha Allah adoo gurigaaga joogo adoo isticmaalayo fitamiinada ayada nooc iyo saliidaha mar walba isku day in aad dhisto fitamiinkaaga hadduu fitamiinkaaga dhisan yahay mar walba fitamiinkaaga uu dhisan yahay waxaa kugu yaraanaya tima gogo ama tima daadashada insha Allah waxaan rabaa hal iyo laba inaan ka dhaho walaalaha qaarkood ayaa qalad ii fahmay aniga bataatan basaliida liiban Bidar Caawiye waa joojiyay maalintan dhahayo fiidkan dhahayay gabigay waa iska daaymaan saliida New Hair Lotion inay waxtar leedahay waa la ogyahay waa la isku raacay taas adiga daawanay waa ogtahay saliida New Hair Lotion inay waxtar leedahay saliida ani wali gaba dhamaan waa haystaa waxaana u joojiyay aniga muddo bil ayaan qabsaday daarti programmadeeda ku noqo hore bishaas aan qabsaday saliida waxaan u hakiyay bal inaan ogaado saliida natiijo ku gaaray laakiin waxaan ku aragnay ama isku daracnay tima daadasho masaliidii hore ayaa fiicnaa New Hair Lotion ka hore miyaa fiicnaa mase kuwa dambe ayaa dhib ka keenayo saan u ogaado marka la tacaalid aan sameeyay ama isku day aan sameeyay waxaan ku guuleystay inaan soo helo kiniinada fitamiinada oo mar walba aan jeclahay inaan kugu dhiirigeliyo ama aan kula wadaago kiniinada fitamiinada waxay iga caawinayaan inay horta iga istaajiyaan marka ugu horeyso tima daadashada awal haddii timahayga daadan jireen ama ay sii go'i lahaayeen New Hair Lotion natiijo waan ka gaaray ama guul waan ku arkay aday daawanaya ku aragtay okay dabcan waxaa isku raacno kale haddii saliidda New Hair Lotion qofka uu joojiyo dabcan saliidda New Hair Lotion markuu guul ka gaaro hadduu joojiyo timihii ma sii joogayaan mase timihii dib ayay u noqonayaan ee New Hair Lotion soo saartay mase dib ayay u noqonayaan waxaan isku raacnay timihii New Hair Lotion ee soo saartay dadka qaarkood markay ku dhahaan fitamiinada iska dhigisnay nagama daadan waana joojinay walaalaha ila soo wadaagay sawirradooda before iyo after waxaan ka codsanayaa walaalahaas ila soo wadaagay saliidda waa joojiyay saliida kale isticmaalaa inaad sawirradaada before iyo after la soo wadaagto saa ula wadaagna barbaarta gaashaaman insha Allah aniga kula hadlayo waxaan u joojiyay muddo bil ah liiban Bidar Caawiye ahaan maadaama aan isticmaalayo kiniiniyadan fitamiinada ah waxtarkooda saan u ogaado ama waxtarkooda u helo aan kula soo wadaaga adiga ayaan u joojiyay wax kale uma joojin dhib kale aan ku arkaa ama xanuun kale aan ku arkana uma joojin tima daadashada waa isku wada raacsanahay kulligeen qof diidan ma laha markaa saliidda isticmaasho oo timihii kuu soo baxaan inaad tima daadasho isku aragto walaalaha qaladka ii fahmay saliidda waxtarkeeda waa isku raacnay waxtar way leedahay
saliidaha qaarkood lambar 2ga midda ah iyo midda lambarka aan lahayna waxaan isku raacnay lambar 2ga inay ka quality fiican tahay midda lambarka aan lahayn mar walbo lambar 2ga ayaa ka quality fiican midda lambarka aan lahayn mar walbo barnaamijka ku soo qaataa ayaan hal iyo labo walaal ka mid ah barnaamijka gaashaaman oo haddaan committee dib aan galo ama WhatsApp-ka fadwiil la soo wadaagay waxaan arkay walaal ka mid ah barnaamijka gaashaaman oo Muqdisho ku sugan oo yiri waxaan u baahanahay saliidaha meel aan ka helo intaan ani u jawaabin walaal kale ayaa committee ugu jawaabay aad ayaa kaga mahadcelinaya sida walaalkaas aa u caawisay aan isku caawino wixii aan u baahanahay ama wixii tala aan isku caawino wixii dib noo keenayna aan ka fogaan insha Allah bidnillaahi kariim baashan haday dib leedahay ama dib aan ku aragnay anaga ma isticmaaleen bulshada lama wadaageen social media ma soo geliyeen baashan waxtar way leedahay muhiimadna waxa ah qofka haduu si sax ah u isticmaalo waxtarkeedu wuu helayaa insha Allah laakiin وقفك حدي وسمعيه هذا وحربه ولكن كل وذاك دون أوفيس ولكن كل وذاك دون بسهولة before after مو استعمالين وحكنيني مو استعمال وحيد قدرت المعيدة كل الدول يعني استعمالي يقرحها ولكن يكون سجين هاي ودن كمالتو كسجين هاي ودن كمالتو أيو كسجين هاي هل يلا ولا لها وصاب فريما يسوي ديادان سوق طلبية هل ولكن ماذا يسوي دي بديا جوجا baadiye maadaama aan joogo walaalkaas waxaan umaleynaa baadiyaha Kenya inuu joogo haddaan qaldaneen wuxuu ku dhahay baadiyan aaday shaambada beebiga oo iga dhamaatay mana haysto beebi shaambadii ma isticmaali karaa saabuunta caadiga oo jirka lagu dhaqo waxaa qalad ah horta kow dadka oomada ku quweysto qalad waa waagaa yar anaga iska wadanka dhabaad waa shaambo lama heli jirin ooma iskaga quweysan jirna oomada qalad waa ku quweysan saabuunta jirka loogu talagalay madaxa loogu dhaqi karo ومدح على وقت رجال الشعب على وقت رجال إنه وقت على وقت رجال ولكن سوي دي إن صابون عادي مدح كله صابون عادي أيضا عذر له أيضا إله كاحرس إله مدح تيمه كصوب حلا من وجدا ضاوع صفضلا صابون صابون هكو بيسن حدي شامبا هيسن بيبي شامبا أما شامبا كردا هيسن فضلا اسكودي إن استعماله بيعت إن استعماله oo ku dhaqda madaxa timahana gaabso madaxaaga ama timahaaga si wasaq u yeelan timaha iska gaabi madaxaaga si wasaq u yeelan insha Allah bidillah kariim waxaan rabaa inaan kula wadaago walaal ka mid ah barnaamijka gaashaaman waa markii ugu horeysay oo wadanka Malta ama jasiiradda Malta nagala soo wadaaga sawirro before iyo after walaalkan inta aan ugu gelin warbixintiisa before walaalkan saan ayuu ahaa walaalkan before saan ayuu ahaa wuxuu ku sugaya wadanka Malta wuxuu yiri wax daawo ama kaniini ma isticmaalin only waxa isticmaal saliid new hair lotion waxaan bilaabay yiri 11 December 2020 December 2020 sawirradan wuxuu nala soo wadaagay koodii maaj nala soo wadaagay isniintii koodii maaj nala soo wadaagay sawirro kale ka soo wareysay laaligeed maanta aan kula wadaagay maanta oo Arbaca ayaan kula wadaagaya insha Allah walaalkan wuxuu yiri waxaan isticmaalay saliid new hair lotion saddex baan isticmaalay mid ugu horeysay lambar ma lahayn uu yiri mid ugu horeysay lambar ma lahayn darmar walka ii dheeraayo yiri shallada waxaana aad ugu badan wadanka Malta qudaarta iyo qoraxda ayaa fitamiino ka helo yiri walaalkan before waa soo aragtay saddex baan isticmaalay yiri saliida hal xabo lambar ma lahayn mid koowaad la wax lambar ma lahayn laakiin waxaan arkay programmada barnaamijyada ka badan oo kaga hadlaya social media lambar 2ga inay quality leedahay kadib lambar 2ga ayaa raadiyay lambar 2ga labada dambe lambar 2 ayay noqdeen walaalkan before waa soo aragtay after oo hadda la joogo walaalkan saan ayuu yahay after oo hadda la joogo saan ayuu yahay guul wacan ayaa leenahay walaalkan walaalaha kale oo rabo ama sawirada in la soo wadaageen ama hore la soo wadaageen waxaan jecelnahay mar walba sawirka ina adiga ogolaasho ka helna maan dadka lama wadaagayno walaalkan saddex buu isticmaalay 11 December ayuu bilaabay ma sha Allah ayaa leenahay tii saddexaad ayaa hadda gabagaba iga ugu dhahay wax kaliina ma isticmaalin ogsoono qoraxda ina ka heli kartid fitamiino badan qudaarta noocyada kala duwan kalluunka ina badsatan isku day insha Allah mar walba waxaan ku soo gudbinayaa aniga waxyaalihii aan ku aragnay new hair lotion ta isticmaalaynay ama ku dadaal timaaga adoo guriga joogo waa aniga oo niyo midana caawiyo ku dhahay fiidnimada ku wacnaata salaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh